dowladda dalka Turkiga ayaa war ka soo saartay gaadhigii walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee maanta lagu weeraray injineer u dhashay dalkaasi oo ku mashquulsanaa dhismaha wadada isku xidha Afgooye iyo magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha koowaad ee January 2020 ayaa qarax lala beegsaday injineer Turkiga oo dhisayay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye. dowladda Turkiga ayaa cambaaraysay weerarkiis miidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shaqaale u dhashay Turkiga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ilaalo u ahaa kaasi oo uu ka dhashay khasaare kala duwan. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Meles Zevenbangi oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in dowladdiisa ay cambaaraynayso weerarkii ka dhacaya inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye kaasi oo uu sheegay in lala eegtay dad shacaba iyo shaqaale u dhashay dalkaasi Turkiga. waxaan dhaleecaynayaa weerarkii argagixiso ee lala beegsaday dad rayid ah oo aan waxba galabsanin kaasi oo lagu dhaawacay 11 qof oo rayid ah iyo 4 muwaadin oo u dhalatay dalka Turkiga ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto garab istaagga shacabka Soomaaliya isla markaasina ay ka caawin doonto dagaalka lagula jiro argagixisada sida uu hadalka u dhigay. sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 20 kale oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga ayaa ku dhaawacmay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday kolonyo booliis ah oo galbinaysay qandaraasleyda Turkiga. sida laga soo xigtay safaaradda Turkiga ee Muqdisho 4 shaqaale oo u dhashay Turkiga kana tirsanaa shaqaalaha shirkadda dhismaha ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo ay al-shabaab sheegatay mas'uuliyadiisa. toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay markii qarax wadada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday ciidamada ammaanka ee ilaaliya muwaadiniinta Turkiga ee ka shaqeynaya dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. 28 bisha December ugu yaraan 85 qof oo ay ku jiraan 2 muwaadin oo Turkiya ayaa lagu dilay in ka badan 150 kalena waa lagu dhaawacay weerar baabuur ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska ee Kiskantarool Afgooye kaasi oo ugu dambeyn ay sheegatay kooxda al-shabaab. dowladda Turkiga ayaa xiriir taariikhi ah la leh Soomaaliya waxayna gudaha Soomaaliya ka fulisay 150 mashruuc oo horumarineed tan iyo sanadkii 2011 markaas oo uu madaxweyne Erdogan booqasho lama filaan ku yimid magaalada Muqdisho. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amar is-hortaag ku sameeyay lacag dhan 112 milyan oo dollar oo lagu dhisay 3 magaalo oo kamid ah caasimadaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amar ku hakiyay fulinta heshiis maanta Muqdisho ay ku kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda, wasiirka howlaha guud iyo duqa magaalada Muqdisho kaasi oo ku kacayay 112 milyan oo dollar. mashruuca heshiiskani ayuu qorshuhu yahay in lagu dhiso magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe iyadoo magaaladiiba ay helayso 28 milyan oo dollar. hase yeeshee qoraal kooban oo gordhoweyd ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kaasi oo saxaafadda la soo gaarsiiyay ayaa lagu yiri iyadoo la tixraacayo amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaa la hakiyay mashruuca horumarinta dowladda hoose ee magaalo madaxyada dowlad goboleedyada oo ay saaka kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda iyo qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. qoraalka ayaa intaasi ku daraya dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa mashruuca waxaana laga qaybgelin doonaa dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka. amarka ka soo baxay Khayre ayaa yimid xilli heshiiskani aad ay uga cadhoodeen dad ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle oo aan mashruucan waxba laga siinin iyada oo aan la aqoon sababta. sida aanu xogta ku helay ra'iisul wasaare Khayre ayaa doonaya in lacagta 112 milyan ee dollar wax laga siiyo labada maamul ee laga tegay ee aan la aqoon sababta looga tegay. hase yeeshee waxaan cadaynaa sida ay uga falcelin doonaan magaalooyinka filayay 28 milyan in la soo gaarsiinayo oo lagu horumarinayo magaalooyinkaasi. wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii heshiiska la saxiixay sheegay in heshiiska lagu bilaabayo ilaa 4 magaalo oo kala ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Garowe balse kuwa kalena ay ku xigi doonaan.
faahfaahinno horle ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay kantaroolka baar ismaaciil ee duleedka degmada afgooye. qaraxa oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu kaxaynayay qof naftihalliga ah ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo boolisa iyo gaari kale oo ay saarnaayeen shaqaale turkiya. ila wareedyo dhanka amniga ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay halka loo yaqaano boodboodka, gaar ahaana kantarool ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin goobtaasi. warar hordhaca ayaa tilmaamay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa shaqaalaha turkiga ee ku howlan dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye oo dayactir lagu wado. ciidamo ka tirsan booliska ayaa la sheegaya inuu khasaare ka soo gaaray si dhab ah. looma oga tirada dhimashada iyo dhaawaca ee soo gaaray ciidamada booliska, balse wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ku dhaawacmay taliya ku-xigeenka ciidanka haram cade ee turkiga uu tababaray cabdiweli fanaaxa. sidoo kale warar aan la hubin ayaa waxay sheegayaan in uu qaraxa u dhaawac ka soo gaaray laba ka mid ah injineerada turkiga ee dhisaya jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye. ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa xirtay meesha uu qaraxu ka dhacay, waxayna hakad geliyeen gaadiidka u kala safra muqdisho iyo afgooye. dhaawaca taliya ku-xigeenka ayaa loo soo qaaday magaalada muqdisho, waxaana weli si rasmi ah loo ogeyn nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray. bil ka hor ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay qarax xoogan isgoyska ex control kula beegsatay saraakiil turkiya oo ka tirsan kuwa dhisaya wadada isku xidha muqdisho iyo afgooye, waxaana qaraxaasi ku dhintay ku dhowaada 100 qof oo shacaba iyo 2 injineer oo turkiya. dhanka kale war cusub oo haddana soo gaadhay ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay ka hadashay qaraxii xoogana ee lagu weeraray injineerada turkiga iyo ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed. booliska soomaaliya ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa lagu soo rakibay oo uu qof nidaamiye ahi wadaya lagu qarxiyey afgooye oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada muqdisho. wararku waxa ay tibaaxayaan in weerarka lala beegsaday injineero turkiya iyo askar booliska ka tirsan oo ilaalinayay. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dhaawacay oo 4 ka mid ah ay turki yihiin. baabuur nidaamo ah oo xawli badan ku socda ayaa galay goob ay injineero turkiya iyo askar boolis ah ay ka qadaynayeen, ayuu yidhi sargaal ka tirsan booliska oo la yidhaa nuur cali oo ay wakaalada Reuters soo xigatay. ciidamada nabadgelyada soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab ay jimcihii isku dayeen in ay weeraraan afgooyaha, hase yeeshee laga caabiyey. kooxdaasi ayaa had iyo goor weeraro ka fuliya gudaha soomaaliya iyo dalalka ay deriska yihiin sida kenya. ugu dambeyn wararka ayaa waxay sheegayaan in aynasan al-shabaab ku guuleysanin sidii ay u rabeen ee ahayd in ay xasuuqaan injineerada turkiga iyo ciidamada booliska. inkasta oo uu khasaare jiro, haddana sidii qorshuhu uu ahaa uma dhicin, ayay dheheen saraakiisha ciidanka booliska. dhanka kale musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in ay doorashada ay qaadacayaan haddii aan 21 maalin oo dambe lagu darin doorashada madaxweynaha maamul goboleedkaasi galmudug. musharaxiinta madaxweynaha galmudug ee xulufada ah cabdiraxmaan maxamed xuseen udawaa, cabdulaahi faarax weheliye iyo kamaal daahir gutaale ayaa soo saaray baaq ku saabsan mowqifkooda ku aadan hanaanka doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi galmudug. baaqa ay soo saareen oo ka kooban 6 qodob ayaa lagu sheegay in ay si dhow la socdeen tallaabooyinkii iyo geedi socodkii arrimaha doorashooyinka, iyada oo ay banaanka usoo baxeen xadgudubyo lagula kacay odayaasha dhaqanka galmudug ayna jirtay wax istabamarin la xiriira hanaankii loo soo xulay xildhibaanada, dhinaca jarjeerka guddiga farsamada iyo guddigii baarlamaaniga ahaa ee maamulay doorashooyinka guddoonka baarlamaanka ee dhacay 17 bishan janaayo oo ku beegneyd maalinnimadii shalay ahayd, iyo faragelinta muuqata ee ka imanaysa madaxda dowladda federaalka oo masiirka galmudug ku jaangooyay rabitaankooda iyo sidii ay u soo saari lahaayeen musharaxiin ay iyagu wataan, sida ay hadalka u dhigeen musharaxiinta warkaas soo saaraya. sidoo kale waxa ay sheegeen in dhuusamareeb la dhigay jidgooyooyin lagu xanibayo isu socodka taageerayaasha iyo ololaha musharaxiinta, iyada oo dhibaatooyin lagala kulmo qabashada kulamada ololaha doorashada, taasi oo la adeegsanayo ciidamada ammaanka.
musharaxiinta ayaa sheegay in haddii sida ay wax u socdaan aan wax laga bedelin xildhibaada iyo is-hortaaga xildhibaanada lagu sameynayo inay arkaan musharaxiinta oo si xor ah waxooda u gudanaya waxaa adkaanaysa in aanay maqraati beenaale ka noqon doonin doorasho ku shubasho ah oo aan reer galmudug u hoosaasino dhismaha maamul gacan ku rimaysa oo aan ka turjumaynin hanka iyo ujeedka dadka reer galmudug marna kama qayb qaadanayno kamana ahaan doono maqraati ayay yidhaahdeen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka galmudug oo ka kooban 3 musharaxa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo handadaada iyo xanibaada xildhibaanadana la siiyo sidoo kale waxa ay ku baaqeen in la joojiyo waqti dadejinta doorashada lana siiyo xildhibaanada muddo 21 maalmood si ay ula kulmaan si xor ah una kala bartaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne. dowladda dalka Turkiga ayaa war ka soo saartay gaadhigii walxaha qarxa laga soo buuxiyay ee maanta lagu weeraray injineer u dhashay dalkaasi oo ku mashquulsanaa dhismaha wadada isku xidha Afgooye iyo magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha koowaad ee January 2020 ayaa qarax lala beegsaday injineer Turkiga oo dhisayay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye. dowladda Turkiga ayaa cambaaraysay weerarkiis miidaaminta ah ee maanta lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shaqaale u dhashay Turkiga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ilaalo u ahaa kaasi oo uu ka dhashay khasaare kala duwan. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Meles Zevenbangi oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in dowladdiisa ay cambaaraynayso weerarkii ka dhacaya inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye kaasi oo uu sheegay in lala eegtay dad shacab iyo shaqaale u dhashay dalkaasi Turkiga. waxaan dhaleecaynayaa weerarkii argagixiso ee lala beegsaday dad rayid oo aan waxba galabsanin kaasi oo lagu dhaawacay 11 qof oo rayid ah iyo 4 muwaadin oo u dhalatay dalka Turkiga ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto garab istaagga shacabka Soomaaliya isla markaasina ay ka caawin doonto dagaalka lagula jiro argagixisada sida uu hadalka u dhigay. sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 20 kale oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga ayaa ku dhaawacmay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday kolonyo booliis ah oo galbinaysay qandaraasleyda Turkiga. sida laga soo xigtay safaaradda Turkiga ee Muqdisho 4 shaqaale oo u dhashay Turkiga kana tirsanaa shaqaalaha shirkadda dhismaha ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo ay al-shabaab sheegatay mas'uuliyadiisa. toddobaadkii la soo dhaafay ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay markii qarax wadada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday ciidamada ammaanka ee ilaaliya muwaadiniinta Turkiga ee ka shaqeynaya dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. 28 bisha December ugu yaraan 85 qof oo ay ku jiraan 2 muwaadin oo Turkiya ayaa lagu dilay in ka badan 150 kalena waa lagu dhaawacay weerar baabuur ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska ee Kiskantarool Afgooye kaasi oo ugu dambeyn ay sheegatay kooxda al-shabaab. dowladda Turkiga ayaa xiriir taariikhi ah la leh Soomaaliya waxayna gudaha Soomaaliya ka fulisay 150 mashruuc oo horumarineed tan iyo sanadkii 2011 markaas oo uu madaxweyne Erdogan booqasho lama filaan ku yimid magaalada Muqdisho. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amar is-hortaag ah ku sameeyay lacag dhan 112 milyan oo dollar oo lagu dhisay 3 magaalo oo kamid ah caasimadaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amar ku hakiyay fulinta heshiis maanta Muqdisho ay ku kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda wasiirka howlaha guud iyo duqa magaalada Muqdisho kaasi oo ku kacayay 112 milyan oo dollar. mashruuca heshiiskani ayuu qorshuhu yahay in lagu dhiso magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe iyadoo magaaladiiba ay helayso 28 milyan oo dollar. hase yeeshee qoraal kooban oo gordhoweyd ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kaasi oo saxaafadda la soo gaarsiiyay ayaa lagu yiri iyadoo la tixraacayo amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaa la hakiyay mashruuca horumarinta dowladda hoose ee magaalo madaxyada dowlad goboleedyada oo ay saaka kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda iyo qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho.
qoraalka ayaa intaasi ku daraya dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa mashruuca waxaana laga qaybgelin doonaa dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka. amarka ka soo baxay khayre ayaa yimid xilli heshiiskani aad ay uga cadhoodeen dad ka soo jeeda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo aan mashruucan waxba laga siinin iyada oo aan la aqoon sababta. sida aanu xogta ku helay ra-iisul wasaare khayre ayaa doonaya in lacagta 112 milyan ee dollar ah wax laga siiyo labada maamul ee laga tegay ee aan la aqoon sababta looga tegay. hase yeeshee waxaan caddaynaa sida ay uga falcelin doonaan magaalooyinka filayay 28 milyan in lasoo gaarsiinayo oo lagu horumarinayo magaalooyinkaasi. wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa markii heshiiska la saxiixay sheegay in heshiiska lagu bilaabayo ilaa 4 magaalo oo kala ah muqdisho, kismaayo, baydhabo, garowe balse kuwa kalena ay ku xigi doonaan.